بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaal maantana waxaan isku dayayaa inaan ka jawaabo su-aalo ay isoo weydiiyeen daawadayaasha kuwaan isleeyahay waa ugu faa'iido badan yihiin wayna u baahan yihiin in wax laga yiraahdo. su-aasha koowaad waxaa isoo weydiiyey walaalkeen Siciid Cumar oo degan waddanka Ghana ee galbeedka Afrika ku yaala. wuxuu isoo weydiiyey su-aasha ah dadka 55 sano jirka ah iyo ka badanba maxay qabsan karaan oo nolosha ka qabsan karaan. aniga aragtidayda waxay tahay 55 jirka wuxuu ka mid yahay dhalinyarada, hase yeeshee waa kuwa cuslaaday. waa waqti uu qofku maskax ahaan bislaaday oo uu wax badan nolosha ka bartay. sidaa awgeed ma aha inuu meel fadhiisto oo aqoontiisa iyo khibraddiisa uu ka faa'iidaysan waayo ama dadkaba uga faa'iideyn waayo. soomaalidu waxaa dabci u ah markuu qofku 40 sano dhaafo wuxuu isu qaadanayaa inuu gaboobay. dumarkuna hadduu xaydku daayo waxay u malaynayaan inay u dhammaatay. meesha laga gaboobo walaal ogow waa maskaxda. jirkuna maskaxda ayuu adeecaa oo raacaa. haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku gaarsiiyey 15 sano jir ama ka badanba, ogow taasu waa nicmo ilaahay oo uu kaaga mudan yahay inaad uga mahadnaqdo. maxaa yeelay dad badan baa la hubaa inayan cumrigaas gaarayn. waxyaalaha aad samayn karto ama aad qaban karto waqtigaas kor ku xusan way badan yihiin. waxaanse ka soo qaadan karaa kuwaan hoos ku xusan. kow, inaad aada u socoto oo socodka badiso ama orodaba si uusan gabowgu kuugu soo degdegin. 2, inaad waxbarasho gasho si kharafka waxa la yidhaahdo ama isku darsanka uu kaaga daaho. 3, inaad dadka aad wax dhaantid waxbartid. ogow adiguna markaas waxaa tahay mid waxbaranaya. 4, inaad samaysid oo ka shaqaysid waxaad jeceshahay oon xaaraan ahayn oo shaqo ah. maxaa yeelay waxaa la ogaaday qofku waxa uu jecel yahay wuxuu ka keeni karaa natiijo ayuu ka keeni karaa. 5, fadhiga yaray oo noqo mid fal qabanaya badanaba waqtigiisa. waxaadna la mid tahay oo qofkaas aadka u shaqaynaya oo la mid yahay sida qof bicycle ama daraajo ama bushkuleeti wada. bushkuleetigu intuu socdoba qofka ka dhici maayo, waa taagnaanaya. laakiin markuu istaago waa inuu ama lugta dhulka dhigtaa ama uu ka dhacaa. wax badan baa qaban kartaa, sida tijaaro aada furatid ama dad kula shuraakowdid, safar aada gashid, xoolo aada dhaqatid iyo wixii la mid ah. waxaan kugu waaninayaa inaad wax qabsato. ugu dambayn waxaan ku xasuusinayaa walaal
in dadkii inaga horreeyey iyagoo intaa ka waaweyn 55 ay intay shaqo bilaabeen ay haddana guulo ka gaareen. mathaal waxaan usoo qaadanayaa asxaabtii nebiga calayhi salaatu wassalaam in badan baa iyagoo odayaala oo dad waaweyna soo islaamay oo xadiiskii bartay oo qur-aankii bartay oo diintii si fiican u fahmay oo jihaad galay wayna waaweynaayeen. sidoo kale haddaynu usoo noqonno waqtiyadan dambe waxaa jira nin corneyl ah oo ciidamada maraykanka ka noqday howlgab oo markuu 65 sano gaaray bilaabay inuu digaag dubo oo digaaggii markaas iib geeyo. markii dambe waa la bartay, aad buu ugu dhibtooday, dhibaato badan baa ka soo raacday, sheekadiisa hadda ma geli karno. kabacdina wuu najaxay Kentucky Fried Chicken waxa la yidhaahdo ama KFC. ninkaa corneylka ah isagoo 65 sano kor u dhaafay ayuu alifay oo sameeyey. maantana Kentucky Fried Chicken caalamka oo dhan baa laga yaqaanaa oo meel aan laga helayn ma ay jirto. sidoo kale waxaa dhaca in dad aad u fara badan iyagoo 60 jira iyo 70 jira iyo 80 jira ay iskool bilaabaan. maxaa yeelay waagii ay yaraayeen ayaan u surtoobin inay wax bartaanna waa jeclaayeen. markaasay sida soomaalida carabkiiba ay weynaaday iyo wax ma kari karo iyo ma iyan orane iskuol dharkiis bay labisteen ilaa ay jaamacada ka baxeen. mathaal kale waxaan usoo qaadanaynaa nin suuriya deganaan jiray oo shiikh aan ahayn baa wiilkiisi azhar u diray. wiilkii azhar buu muddo ku maqnaa, jaamacadda azhar oo masar ku taal wuu ka soo baxay. odagii marka ma uusan oran anigu waa gaboobay wiilow adigu hadda shaqadii wada, wuxuu yidhi ii fariiso halakan. odagii azhar isagoo 60 sano jira ayaa azhar u tegay waxbarasho ilaa uu noqday sheikhul azhar oo markaas 90 jir uu ku gaaray isagoo sheikhul azhar ah. marka waa qiso aad iyo aad u yaab badan. kuwaasoo dhan waxay kugu dhiirigelinayaan inuusan ya'si iyo quus uusan kugu dhicin sababta cumrigaagoo weynaaday ee mar walbana wax waa baran kartaa, waxna waad qabsan kartaa. intaas ayaan kusoo koobayaa. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.